maamulaha dugsiga sare ee Sacaadin School ee degmada Seylac Muumin Jaamac Xasan ayaa waxa uu soo qabanqaabiyay kuwa ugu magacdaray horaa loo soconaya isla markaasna ugu talagalay sidii uu u dhiirigelin lahaa dhalinyarada ku nool degmada Seylac. koobkan ayaa waxa ku hirdamiyay 8 kooxood isla markaasina kala sitay magacyo kala duwan. gabagabadii koobkaasi ayaa waxa ugu dambeyntii halkaas iskugu yimiday labada kooxood ee ku kala ciyaaraya magacyada dawladda hoose degmada Seylac iyo sidoo kale kastamka degmada Seylac. halkay guusha ku raacday kooxda ku ciyaaraysa magaca kastamka degmada Seylac iyagoo kaga badiyay 2 gool iyo eber dawladda hoose ee degmada Seylac. dadweynaha ka soo qayb galay daawashada koobkani ayaa waxa ay si weyn uga mahad celiyeen maamulaha dugsiga sare ee Sacaadin School ee degmada Seylac Muumin Jaamac Xasan iyo sidoo kale barasaabka gobolka Seylac iyo duqa degmada Seylac oo iyagu qayb weyn ka qaatay isla markaasina kala shaqeeyay qabashada koobkani. maamulaha dugsiga sare ee Sacaadin School ee degmada Seylac iyagoona baaq u diray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay sheegeen inay haba yaraatay ay soo gaarinba degmadani Seylac waxay ka qabataba hadalkeeda badaayay. sidoo kale markuu koobkani soo gabagaboobay ayaa waxa uu haddana maamuluhu bilaabay inuu qabto orodka dheer iyo sidoo kale orodka 100 mitir iyagoona labadaas orodba si farxad ku dheehantahay ku dhamaadeen isla markaasina ay u soo baxeen dadweynaha ku dhaqan degmada Seylac. koobkan iyo orodadani maanta lagu qabtay degmada Seylac ayaa noqonaya kii ugu wanaagsanaa halka ay koobabka lagu qabtay degmada Seylac ay markii hore ay sababi jireen carqalado iyo iska hor imaado dhalinyarada ay dhaxmarayso ciyaarahaasi balse koobkan ayaa waxa ku soo dhamaaday si farxad ku dheehantahay isla markaasina ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan degmada Seylac. maamulaha dugsiga sare ee Sacaadin School ee degmada Seylac ayaa waxa uu sheegay in xalfad balaaran loo qaban doono dhalinyaradii iyagu qaaday koobka kubadda cagta iyo sidoo kale dhalinyaradii ku kala guuleystay labadii orodba. halka waxa kaga warbixinayaa kubaddii aan soo qaban qaadanay anigoo ah maamulaha dugsiga sare ee Sacaadin. koobka oo ah koobkii sanadkan ugu horeeyay qabano waxaan jecelahay hadii la yiraahdo inaan sii wada doono sanadkan Ramadan kana koob kala qaban doono hadii la yiraahdo. koobkaasi waxa ciyaaray 8 kooxood waa dhalinyarta magaalada Seylac ama degmada Seylac gudaheeda oo kaliya. koobkan waxaan hadafkiisu yahay sidaan ugu magac darnayba oo koobka waxa loogu magac daray horaa loo soconaya. waa in dhalinyartu ay nashaadaad badan sameeyaan isdhexgalaan magaranaysa isbartaan. taasi waa qodob. ta kale waxaan koobka u qabanay in uu waa horta jimicsigu waa qayb ka mid ah waxbarashada. waa waxa uu baahan yahay qofku oo jirkiisa ayaa ku dhisma firfircooni badan baa laga helaa. markaas kaasina waa qodobka labaad. haddaba waxa gacan naga siiyay koobkan barasaabka gobolka Mawlid aad buu u mahadsan yahay iyo waxaan ilaawi karin maayarka degmada isna gacan weyn naga siiyay. waxa marnaba aan ilaawi karin isaga ninkii gacanta koobka ku hayay iyo dhalinyarada soo agaasimay noo soo qaadayay 8 kooxood ahaana garsooraha koobaad koobkaasi. waxaa la yiraahdaa Cilmiyare oo injineer Cilmiyare oo shaqaalaha dawladda hoose kamida. Cali Isaaq Ibrahim nimankaas oo ahaa iyaguna garsoorayaasha. koobku uu si qurux badan u dhamaaday wuxuuna noqday koobkii ama ciyaarta ugu quruxda badneed laga qabto degmada Seylac. waxaana finalkii ku gabagabooday gool ah in dhalinyartii ay ku wada qanceen garsoorkiina ay ku qanceen wax rabshadii kama dhicin. ma jirin wax maxaday iska hor imaadaha oo dhalinyartii dhexdeeda ay isku khilaafeen. kulli marka koob kala ciyaarayo rabshado badan baa ka dhasha oo iyadoo ay ka dhashaan dhinacyada la kala taageersan yahay. marka wallahi akhlaaq fiican bay muujiyeen shicibkii magaalada Seylac iyo dhalinyartii dugsiga sare ee Sacaadin. aad bay ugu mahadsan yihiin. hadii ilaahay yiraahdo koobkan waa sii wada doonaa. waxa inta noo dheer oo koobkan noo raacay orodka marka hore waxaan ugu talagalay ilaa 4 kilomitir laakiin uu suurtagal weeday sababa awgood oo Seylac dhanka sabada ka soo gashay badii ba dariiqadii naga yar wada xidhay oo qoyaan noqotay meel lagu silbanayo.
marka dhalinyarta inay jabaan ay ku salbadaan waan uga baqanay inay kasoo ordaan dibadda marka kaalinta shidaalka galbeedka magaalada ku taala kibaar substation ayaan kasoo bilownay waxaana kusoo dhammaynay fooqa kooca ama guriga maayarka iyo guriga xogayaha dabadooda orodkaasna wuxuu iska noqonaya inuu ilaa 1,000 mitir ama 1 kilomitir unbuu ahaa isna saddexdii u horeysay ayaan ka qaadanay ka abaalmarin doonaa insha allah waxaa kaloo qabanay urur muxuu ahaa orodkii 100 mitir ahaa isagana saddex waan ka abaalmarin doonaa insha allah xafladda haddii la yidhaahdo toddobaadkan ayaan qaban doonaa وعلي أحمد ديري علي دقدلول ورك أريل تي في مقالة سيلع